كهذا سؤال شمانتا وهذا راح ينتبضن ساحة السياسة سومالي لاند تاسو دبدعي دورشوينكا يقوانكي قولها قورتي ده iyo raayada kale ee soo baxay ee go'aankaasi ka muujiyay in ay fikrad ka duwan qabaan raayada soo baxay ayaan maanta idinku yeeray mid ka mid ah xogta aanu ka hayno inaan ummadda u iftiimiyo raayigaasi ka hor yimid go'aanka guurtida raayiga aad isugu dhajiyay fargelinta faraha badan leh isku dayay inuu sameeyo waxa ka mid ah qolooyinka wakiilada u ah dalalka inaga caawiyo doorashooyinka qaarkood ma wada dhamma iyo ergeyga qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya iyo maxaan idhaahdaa arrimaha Somaliland ba maxaa la yidhaahdaa Nicholas Kay xogtaanu haynay rasmiga sababta uu ugu dhagan yahay ama ugu soo maqiiqan yahay ee uu sida xooga ugu danaynayo in uu doorashada Somaliland ka hadlo dib u dhaceeda iyo horumarinteeda inuu ka hadlo go'aanka hay'adaha dastuuriga iyo hay'adaha kale ee ay ka dhaxaysay ama stakeholderska ka mid ahaa ee ku tartamayay doorashada oo Somalilanderka ay xuseynaysa arrintooda intay dareynayaan in ka badan inuu dareeyo xogtaanu haynaa waxay tahay waa ogtiin waxay gacanta ugu hayaan Soomaaliya oo ay ka hawlgalaan waxay ugu ku sheegeen doorasho dhacaysa sanadka 2016 ergeygaasi wuxuu la wadaagay fikradda dadka oo la wadaagay xogta laga hayaa ay tahay inuu aaminsan yahay in haddii doorashada Somaliland waqtiga ay guurtu samaysay ay noqoto ama dib u dhaca inta leegu ku yimaado inay doorashadii ay ku tala galeen nooc ay doonto doorasho ay doontaa Soomaaliya inay iyaduna dib u dhacayso waxaan doonayaa halkan markaa inaan anagu ka xaqiijino oo aanu ka cadeyno annaga halkan waxaan la yiraahdaa Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu nahay dal iskii uga go'ay la soo noqday madax bannaanidiisii waxaanu nahay dawlad waxaanu nahay qaran waxaanu leenahay golayaal waxaanu leenahay xukuumad waxaanu leenahay xisbiyo waxaanu leenahay guurti waxaanu leenahay dastuur waxaanu leenahay sharci dantayada xisbiyada iyo xukuumadda iyo golayaasha qaranka ee dastuurku u xaq siiyay inay ka hadlaan waqtiga doorashada la qabanayo iyo hay'adaha ay khusayso ayaa iyagoo danta dalka eegaya danta sharciga eegaya danta jiritaanka dawladnimadeena eegaya danta nabadda eegaya danta saaxadda ugu quruxda badan ee doorasho ku dhici karto eegaya ka tashanaya laakiin waxaanu leenahay saaxiibka Soomaaliya ergeyga uga jabhada qormaha ka dhaxaysa kay annaga doorashada Soomaaliya waxna khusayma hadday dib u dhacayso iyo hadday hore u dhacayso iyo haddii maanta la qabanayo wax annaga na khuseeyo ma labada doorasho wax isa saari kara ama wax iska khuseeya oo aanu ognahayna ma jirto marka annaga waxaan ka xumahay in ay qaarkeen u dhagan nuglaadaan iyagoo moodaya inay inagu leedahay khatar in ra'yigaasi Nicholas Kay ee aanina khuseynin haddaynu diidno oo aynu niraahno war waxaan annaga ka tashanayno waa aayahayagii waa dadkayagii waa dalkayagii waa nabadayadii waa doorashadayadii annagayna khusaysaa oo ka heshiinayna oo isla garanayna haddaanu nidhaahno inay
inagu keenayso in wax layna siin jiray aynu waayno inay quutal daruuriga naga go-ayo xasha kalla waxaynu nay dal iyo uma jirta waxaynu halkan kusoo gaadhnay inagoo saaxiibada ina caawiya u mahadhayna inagoo saaxiibada ina kaalmeeya ugu abaalhayna inagoo cid kasta haba taageeraadaan ama waxa ayna soo gaadhsiiyaan haba yaraadaane laakiin boqolkiiba 90 waxaynu nahay ummad isku tashatay oo halkan kusoo gaadhnay dunida kama maarano waynu u baahannahay laakiin dunida ninka ama siyaasiga doonaya wax aan dalkeena dani ugu jirin inuu nagu khasbo wax inoo diidaya ma jirto inaynu idhaahno adeer dalka doorashadiisa nama khusayso Soomaaliya la idhaa doorashada iyadana inta halkaa fadhida ee danta doorashadu ka dhaxayso ayaa ka heshiin doonta marka anagu xogtan doonayna in shacbiga la wadaagno oo aan u sheegno waxa weeye xafiiskaasi la yiraahdo xafiiska maxaa xafiiskaasi Nicholas Kay wuxuu aaminsan yahay in doorashada Somaliland iyo doorashada Soomaaliya ay isku xidhan yihiin inaguna waxaynu aaminsanahay inaynu doorashadeena inagu leenahay labada doorasho wax iska khuseeyana aanay jirin waa intaas maanta idinku yeedho